caafimaadka baryeeliya degenaansho dalkayga maxaa u diiday dalkayga maxaa u diiday. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada YouTube channelka Media Group. maanta waxaan la joognaa Cabdullaahi Bashiir oo rabno inaan ka wareysano doorashada ka dhici doonta wadankan Denmark bisha soo socota insha Allah. Assalaamu calaykum Cabdullaahi. Calaykum salaam. kusoo dhawaada barnaamijka. Cabdullaahi waxaa sameyseen group la dhahayo DSS oo rabo inuu ku dhiirigeliyo Soomaalida inay doorashada ka qayb galaan. ma nooga sheekay kartaa groupkan sababta u sameyseen iyo goorma sameyseen? groupka waxaa sameynay waqti aan fogeyn adiga hadda weekii la soo dhaafay weekend gudihiisa aan sameynay ujeedada groupka loo sameeyay waxay tahay in dadka lagu dhiirigeliyo inay codeeyaan saa la socoto xaaladda siyaasadda dalka u isbedeshay waxaa soo badanaya xisbiyadii dhinaca midigta shishe oo macnaheed kii ugu dambeeya oo ah xisbiga Stramkus oo doonayaba maaragtay in dalka dadka ajaanibta gaar ahaan muslimiinta in dalka ka nadiifiyo marka maanta maalin ka muhiimsan tahay ma jirto in dadkeena inay soo baxaan oo codeeyaan cod ku ridaan. Okay, groupka meeqaatiin meeq qof aatiin? ilaa hadda maxaa ka wadaa macnaheed yani dadka aasaasay ama dadka ku caawinaya yaa waxa waaye dhalinyaro community jooga aniga iyo qaada dhalinyaro kale oo iyagana oo jooga diiroomeen macnaheedu hadalna ma socdaan. Okay, waxaad tiri waa waqtigii ugu muhiimsanaay in laga qayb galo doorashada. waxay kula tahay ma yani hadda Soomaalida haddii ka qayb galaan doorashada in isbedel weyn dhacayso? horta mar walba sida la sahminayo waxay u badan tahay dalka 190 in dowladda Soomaaliya iyadoo haddaysan dhicin yani wax xaaladda siyaasadda dalka wax dhan ka bedel macna sida doorashada hadda u socoto muhiimadda waxa weeye inay dadka codeeyaan waayo haddii dadka ay codeeyaan waxaan macnaheedu awood u helinaa in horta xaaladii si aragga sida muslimiinta looga hadlayay dadka ajaanibta ah iyo Soomaalida in ay wax iska bedelaan ayaa dhici karto sida darteed ayay muhiim tahay in codka dadku ay soo baxaan oo codka ay ku ridaan si aan isbedel buuxa loo helo. laakiin haddaa fiirisid maxay meeqa Soomaali ah wadankan degan oo coday karto ay 7,000 camal waay waxay kula tahay 7,000 haddii codeeyaan in isbedel weyn dhacayso mase isla sidii ahaanaysa sidoo sheegay 7,000 cod oo maartay way badan tahay marka loo eego dalka laga dhigo ma badno laakiin waxa disbatil waxay qiyaastii waxa weeye hal qof oo kale ayaa macnaheedu ay soo gelin kartaa codka intaas leeg baarlamaanka dalka يعني هل قف اوكي هاي شو قلنا كتا اوكي وحنا كو خدمت حسبي قف كشرحيا حسبي دو وينو كلا دو كشرحيا دحك كتا لو قف كلا سو غليسو يا حسبي انه كركعو يين هوس انا way ku xiran laakiin tadbuku inuu qof wacni waa cod badan macnaheedu hadaa eegto dadkeena waxa looga baahan yahay dadkeena waxa looga baahan yahay codeeyaan su'aasha meesha taalla marka waxay tahay hadda way sidee u codeynayna ma xisbiya u codeynayna ma qof ba u codeynayna yaa ugu ridayna codka su'aashaasna waa su'aal oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga hadlo Denmark macnaheedu way adag tahay in aad xisbi madaxdiisa oo kale la kulanto dhahdid kama soo qaad anaga waxa dhibaatooyinka bulshada Soomaalida haysto ugu badan waxa kamid ah in maartay markii qaarkood ay dhacdo in dad ay maartay siyaasiyiin inaga noo isticmaalaan dad macnaheedu integrationka aan qaadan oo kale macnaheedu adag tahay in xisbi soo furisto aad la samayso macnaheedu innovation ama fahaming la samayso dhahdo haddaan idin codeyno maxaad ka faa'iideynaa laakiin tala samayn karo waxay tahay in marka koob horta la eego xisbiyada innaka inoo fiican xisbiyadaas macnaheedu waxaan aaminsanaa xilligan hadda lagu jiro xisbiyada inoo fiican waxay yihiin xisbiyada yaryar oo dhinaca bidixda ah sida qarikeelka alternative English listing oo kale maadaama xisbiyadaas ay marba social media way badan tahay 100% inay badiyaan
xisbiya waxaan u baahannahay dhinaca bidixda dadka u jiidi kara socialka xisbiyaas hadday awood yeeshaan macnaha kor u kacaan waxay macnaha mar walba social democracy u baahanahay marka u baahanayaan xisbiyadaas markay sharci cusub ama wax cusub ay baarlamaanka ay soo marinayaan marka haddaan eegno macnaha hadda waxay tahay su-aashii haddaan usoo noqdo ahayd ma xisbi baan ugu ridnaa ma qof baan ugu ridnaa xisbi yani qofka biniaadanka mar walba isaga xaq u leh qofku codka ugu ridaayo taas horta waa muhiim inaan xasuusano yani qofku rabo ugu ridi karaa mar walba qofka isaga xaq u leh taas waxa waaye qof kasta dalka dimuqraadi yahay macnaha qofna oo laguma qasbi karo qof maaragtay meel ugu rido taas waa arrin muhiim horta qof kasta inaan isla ogaano laakiin tal rabo waxa waaye annaga waxa waaye inaan ka fikirno mar walbaba innaka xaggee danteena ku jirtaa iyo sidee danteena u raadin karnaa haddaa eegtid haddaan macnaha saan kuu sheegay xisbi macnaha wada hadal lama samayn karo toos oo dhahayno annaga idinkan codkeena oo dhan ku ridaynaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ka fikirno xisbiyada waxay leeyihiin space candidate waxay leeyihiin dad macnaha shakhsiyaal loo badin karo inay soo galayaan baarlamaanka oo kale xisbiyadana doorashada waxay xisbi kastaaba wuxuu ka taasoo qofaya uga sharaxan macnaha tiisoo kale waxyaalaha loogu yar khayska marka waxaa loo baahan yahay in magaalo kasta oo maariga dad Soomaaliyeed degan yihiin inay xiriir la sameeyaan xisbiga iyaga ku qanacsan yihiin ay ka wada hadlaan meesha ay ugu ridayaan iyo qofkii ugu ridayaan okay adiga groupkiina waxaad dhahdeen waa muhiim Soomaalida inay codeeyaan laakiin inay codeeyaan leemiya mase waa inay gruubyada u codeeyaan oo Soomaalida ama ajnabiga inay caawiyaan rabaan anigu waxaan aaminsannahay dadka gruubyada danteena ku jirto xisbiyada danteena ku jirto inaa cod ugu ridno so codkaas la bixinayo ma aha cod in la iska bixiyo laakiin cod oo dadka Soomaalida caawinayo ama isku dayayo inuu caawiyo ku baxo okay hadda sida u hadlayno 7,000 camal codeey kartaa waa marka 7,000 ra'yaal kala duwan jiro sax dada aaminsan inaa codeyno dada aaminsan in la codeynin haddaan fiirino dadka inay codeeyaan rabaan aad u badan yihiin laakiin hadda sida u hadalnay 7,000 dad badan maaha soo dadkaas badankood inay codeeyaan la rabaa see uga dhaadhici kartaa marka qof rabin inuu codeeyo ilaan taasaa muhiim oo anaka saxo horta qofka isaga xaq u leh inuu codeeyo iyo inuusan codeynin laakiin mararka qaarkood waxaa jiro oo qofka shakhsiga gaarka dantaada gaarka ah ka weyn waxa waaye sida xaaladda sida la socota maxamed iyo siyaasadda dalka wax badan la socota waxyaalo waxaa jiro oo hadda badan oo dadkeena saameeyay waxyaalahaas sameeyay waxaa laga yaabaa aniga iyo adiga oo kale halkaa ku kornay oo wax ku baranay oo shaqooyin haysana inaysan saameyn badan ugu yeelan waxaa kamid ah kaba soo qaata content lofto waxaa kamid ah intiqashuun suluulsan waxyaalahaas oo kale macnaheedu waa wax saameyn bulshadeena ku leh laakiin aniga adigoo kale saameyn weyn naguma leh waayo adiga waa wax bartaata waa shaqaysataa saameyn ma kugu leh laakiin maamooyinka hooyooyinka oo kale dadka waaweyn macnaha saameyn ay ku leedahay waxaa jiro hooyooyin kaba soo qaad oo 5 carruur haysta oo keliya degan lacagta cayda kale hadii lacagta cayda marka waxa laga dhimo kale macna noloshada ilmaha saameyn dhaqaalahooda ay ku yeelanaysaa sida darteed macnaheedu qofka saan ku sheegay qofka isaga xaq u salino codeeyeen kale laakiin waxa inoo muhiima in aan ka fikirno sida aan dadkeena waxa u wanaagsan aan u sameyn lahayn haddii aad codeysino waxa weeye macnaheedu alxamdulillah wax fiican hadda aad dooratay inaad codeyna adiga ku tahay qofka shakhsiga isaga u taala laakiin waxaa jiro macnaheedu wax danta guud ah oo mar walba loo baahan yahay inaan ka fikirno dad waxaa jiro Cabdullaahi oo aaminsaneen ama aan codeyno ama la codeynin oo isbedel dhacaynin dadkaas maxaa ku dhihi lahayd waxa waaye codka qofka bixinta codku waa waxa kaliya dan maahan qofku macnaheedu wax tili kara Denmark haddii aadan codeynin waxa weeye macnaheedu dalka jihada ugu soconayo
يعني واحد بدن معناه وحبك ما سوق كردين تاسو تكوبات طلباتنا يعني هذا ما تعرفيسو aad xisbi u codayso Brit hadii wixii ay sameeyaan waxa ugu codayso wax ka badan ay sameeyaan waa macnaheedu waxaad xaq u leedahay inaad tiraahdo waan codeeyay way codeeyay maxad macnaheedu maxaa sameysay laakiin hadii aad codeynbo oo Brito waxyaabo adiga macnaheedu noloshada saameyn ku yeelanay ay sameeyaan macnaheedu waxba ma codeyn badan maxad xaq u leeyahay inaad kahayso laakiin wix dadka oo dhahayaan in la codeeyo wax faa'iido ma laha waxay arkeen in hadda shuruucii ugu dambeeyay oo wadankan laga bedelayay waxa isku raacay group kala dhahayo Dansk Folkeparti Social Democracy iyo Venstre marka annakan waxa rabnaayo haddaan codkeena dhiibeeno gruubyasha kale oo yaryar inaan u dhiibno marka saddexdaas haddii markasta isku raacsan yihiin waxa la sameynayo markii laga hadlayo ajnabiga iyo shuruucda la sameynayo marka maxaan bedeli karnaa waa sidoo badan tahay macnaheedu Merefalix ana noqon sidaas mistad Merefalix wuxuu baahan koob 9 xildhibaan ama mandate كبعدنا waxay la hadlaysaa xisbiyada u badan tahay in markii la hadasho xawaaye inisisti iyo SF waxa kale ka dhawaajisay in tiri macnaheedu waxa laga yaabaa in anaga dawlad gaar ah aan sameysano laakiin mar walba waxay u baahan tahay parliamentary conley macnaheedu in koob 9 ka xasuusto koob 9 ka shil baday kulmud ma helaya marka kabacdina way isla fariisanayaan xisbiyada oo la wada hadlayaa mid kasta uu keensanaya waxa ay rabaan inta dawladda la soo dhisayo macnaheedu wixii asaas u noqon lahaa laga wada hadlaya sida darteed mar walba marka aan haddana xisbiyada yar aan ugu ridno macnaheedu waxyaalaha xisbiyada yar waxyaalaha inaga saameynta lagu yeeshay way ka soo horjeedaan party miskifted ghetto parking waxyaalahaas oo ka soo horjeedaan laakiin social democracy way ogol yihiin waxaa laga yaabaa inaan wixii oo dhan dib loo soo celiyo laakiin waxyaalihii la sameeyay qaarkood in wax laga bedelo oo maartay limbilse oo lagu sameeyo la fududeeyo macnaheedu waxyaalihii marka waxaad dhahaysaa wixii qaladaadkii la sameeyay dhan lama saxi karo laakiin qaar ka mid ah la saxi karo arka macnaheedu waxay oran karaan macnaheedu marka labada qof ay maartay wada hadlayaan fohelling marka la sameynayo waxa weeye macnaheedu kumkumiba meesha imanay maartay in la soo tanaasulo waxa dhici karta saadafta waxa dhici karta wixii ay markii hore la sameeyo dhan inaan waxba laga bedelin badankooda inaan wax laga bedelin mar waxa dhici karta in xisbiyadan yaryar ay mariyaan maadaama ay u baahan tahay waxyaalo badan laga bedelo ma ogin ilaa hadda waxa ka soo bixi doono laakiin mid walba haddii isbedel uu imaado in waxyaalihii qaarkood sida hadda inisiisno kale waxay dhaheen intiqashoonsuulsin iyo contact iyo waxaas suuqa laga saaraa macnaheedu hawada ka baxaysa okay dadka aaminsaneen way markii in wax la bedeli karo dadka la soo haray oo rabin ayaga xataa inay doortaan oo sababtoodu tahay diinta dada aaminsan ama ila culimada waa taqaana muslimiinta meeshan waa meel yani isku wada raacsaneen dada waxay dhaheen hadii culimada isku raacsaneen inay doorashada xalaal iyo xaraam tahay annaka waxa noo muhiimsan marka wixii shaki ku jiro in iska deyno saxwa dadkaas maxaa ku dhihi lahayd marka ayagana xaq u leeyihiin hadaysan rabin in codeeyaan waxaa qofka diinta qofka dadka muslimiinta ma diintooda muhiim u tahay qofka isaga aaminsan diin ahaan inuusan codeynin macnaheedu waa qof shakhsiyadda oo u taalo macnaheedu taas qofna ma lagu khasbayo ma garatay laakiin guud ahaan macnaheedu waxa muhiim ah dadka codeyn kara inay codeeyaan aniga waa aragtida gaarka aan aaminsanahay laakiin qofkii aan rabin oo aaminsan maadaama diintiisa ay ka celinayso waxa waaye asaga u taala aniga macnaheedu caalimihi oo ma oran karo macnaheedu waa saxsan tahay waa khaldan tahay laakiin سالس عثمان تبي فيسبوك ما كان هذا الكهل لوكال اللي يربطنا معني واحد هم معني علماء بدن كذا حال مسنتهي إن أو لا قضية معني بيقولوا له وحواي تحصل وحواي قف الشخصي يسجل لكن من البوط الله معني إذا مسيحين لا أوكي ودم بنتي محا هاد هدا له إنه تضوض أسكون
4,000 ama 5,000 aan ka heli karnaa haddii dadka rabaan inay doortaan. صح dadkaas maxaa kula tali lahayd xisbiyaashee aa kula tali lahayd inay doortaan? aniga shakhsi ahaan aniga waxa qofka horta muhiim maxamed mar walba inaan xasuusano qofka waxaa jira inaga xisbiya danteena ka shaqeeyo laakiin qofka muhiim wuxuu leeyahay xaq u leeyahay mar walba wuxuu isagu meesha uu doonayo inuu codka uu rido. ani shakhsi ahaan cabdulaahi waxaan ku talin lahaa xisbiyada yaryar in la codeeyo gaar ahaan sida baarkii qarikeedka alternative-ka iyo misliisto saddexdaas xisbi in loo codeeyo. cabdullaahi aad u mahadsan tahay. insha allah adinkan aad u mahadsan tihiin inaad barnaamijka qayb gasheen. insha allah waa iswada arki doonaa. حسيحن